marka anigu oday diyaar oo ma ihi gabaraan dhalay oo aan ogahay habeen iyo maalin aan daba ordayay ilaahay baa wax xifdiya maadi hooyada kulanti wanaagsan haddii aad tahay aabbo soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ama gabar soomaaliyeed oo guurdoona oo qurbaha ku nool ama wiilba hadalkan waxaan jeclahay inaad si fiican u dhuuxdaan maxaa yeelay waxaan rabaa 3 arrimood oo xasaasi ah inaan idinkaga dhaco waa midda koowaad marka gabdhaha Soomaaliyeed oo ah dumarka dunida ugu sharafta iyo quruxda badan markay guursanayaan nimanka ajnabiga ah maxay ku dhacday in meherkooda la raqiisiyo oo laga dhiga mararka qaarkood $15 $15 gini $30 iyo $40 iyo waxyaalaha la midka haddii la yiraahdo wiil Soomaaliyeed baa guursanayana ay cirka isugu shareertaa waa qaybta koowaad ee barnaamijkan aanu ku eegi doono qaybta labaad barnaamijkan haddii ilaahay yiraahdo waxaanu ku eegi doonaa arrinan aniga laftigeygu xog ogaal u ahaa oo ahayd aabba Soomaaliyeed oo diiday gabadhiisa inuu ka qayb qaato ama ka soo qayb galo markii la meherinayo asagoo magaalada jooga kadib markii ay guursatay nin ajnabi ah isla mar ahaantaana ah muslim hase yeeshee uu diiday ninkaa iyo gabadhiiba ama ninkuba uu diiday gabadhiisa guursanayay in uu dad fara badan ay ka soo qayb galaan oo odayga gabadha laga guursanayo la karaameeyo waxaana lagu yiri 8 qof oo kaliya ayaa guurkaas ama reerkaas la yegleelaya ka soo qayb galaya odaygii Soomaaliyeed ayaa furka tuuray arrintaas xagee ku dambeysay barnaamijkan intaan baarayay diyaarinayna ayaa waxa igu soo dhacday arrimo hadda ka hor aniga iyo ubadkayga qaar ka mid ah ilaahay kulligood ha noo daayaane sheekooyina dhex maray waxaa laga yaabaa badankiinada ogtihiin inaan ahay aabe ilaahay mahadaha ka gaadho subxaanahu watacaala isla mar ahaantaasna gabdho waaweyn oo 4 ka mid ah ay xilliga gabdhaha la guursado ay gaareen haddii nin uu geed ii soo fariista ajnabi ah gabadhaada cabdixafiid oo ma siin lahayd aad iyo aadna ay isku jecel yihiin arrintaas waxaan u malaynayaa timaha inta igu hartay baa iga bidi lahayd hadday ila gudboonaan lahayd sababaha dib ayaan idinkaga sheegi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waxa dhacda mararka qaarkood in gabdhaha Soomaaliyeed sharfan markay guursanayaan niman ajnabiga gaar ahaan kuwa muslimiinta ah oo wadamada kale ka yimaada ha cadaan ha madoobaada buluug ha noqdo green ha noqdo we don't really care markay guursanayaan nimankaas muslimiinta oo badankooda inta badan ayagu markaas dadka ahludiinka ah in meherka gabadha Soomaaliyeed uu noqdo almost waxaan jirin waxa laga yaabaa inaad istiraahdid hadday labada isguursanaysay raalli ka tahay adigu maxaa ka quseeya arrintaas waa ku gar leedihiin laakiin waa idin gar dhiganaynaa haddaan ragga Soomaaliyeed haddii gabadha Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed uu guursanayo maxaa meherka cirka ugu leejisaa $10,000 $20,000 intaasoo silsiladood dahaba intaasoo maxaa lahaa kana maxaa loo yiraahdaa ma nimankan ayaa ragga Soomaaliyeed wax dheer mise annaga wax naga khaldan yihiin mise dadka Soomaaliyeed baa dadka ajnabiga u dhagan nugul oo waxaan haysta xanuun la yiraahdo inferiority complex dadka ajnabiga ayay u dhagan nugul yihiin ma sidaas ay u jiraan xarad waa sidee comment-ka hoose ayaa dabcan ugu wadaagi doonta waxa jirta documentary dalkan Ingiriiska ayaan hadda muddo laga jooga laga diyaariyay cidii doonaysana insha Allah taala hoos baan ku soo qaban doonaa idin soo dhigi doonaa saa u daawataan gabar Soomaaliyeed oo nin laba xaas oo hore u lahaa uu ayada guursanayo which is perfect halal and normal and caadi in adoo laba xaas leh 3 xaas leh mid kale aad guursatid diintiisa ayaa ogolaatay haddii gabadhii rabto ay raali ka tahay wax aad ka oran kartid baa iska yar oo waa dooqooda weeye sidaa awgeed waxa dhacday gabadhaas in lagu meheriyay meherkeedii uu ku baxay 58 gini oo kaliya 58 afar qof ayaa meherkii loo yeeray 2 markhaatiya imaamkii iyo qofkii walaayada gabadha lahaa wabillahi tawfiiq meherkii waa dhamaaday marka wiil Soomaaliya uu gabar soo doonto
maxaa meherka cirka loogu dhajiyaa oo durbaana loo tumaa haddii qalanjooyinkeeniiba $50 iyo $40 lagu meheranayo horaa idinkugu sheegay dhibaato iguma hayso qofka asagoo maxay dhahaa dooqiisa iyo wuxuu asagoo ku mehersanaya laakiin su-aashu waxay tahay waxa ninka ajnabiga loo sameeyey maxaa loogu samayn waayey oo raalli bulshada uga noqon weyday wiilka soomaaliyeed geeya ee gurdoonka ee ayeydii aad taqaanid oo awowgii aad taqaanid oo ilaa maxamed rasuulullah ahaa nabadgelyo naxariisu shahaate muslim kan shalay soo muslimay ama horeyba muslim u ahaana maxaa la yidhahdaa wax walba loogu jebinaya mararka qaarkood waxyaalaha aan ka xumaada waxaa ka mid ah inuu nin caddaana oo muslima igu yiri aanu doonayn magaciisina halkan ka sheego 4 gabdhood oo soomaaliya ayaan qabaa buu yiri oo kulligood ayagoo wada carmala aan guursaday I am taking care of them sidii annagu ragga soomaaliyeed inaanan take care ku samayn karinin gabdhaheenna hooyooyinkeena walaalaheen oo kale marka sheekooyinkaas aan maqlay dhagaha ayaan ka dabooshay sababtuna waxay tahay ma arki kara anugu idinku haddaad taqaanaan ii sheega waxa ninka soomaaliyeed uu qaban waayey wiil yaroo caddaana inuu qaban karo qofkii ku qanacsan sidaa ama garan kara isagaa ii sheegi doona waxa laga yaabaa qaarkiin aad tirahdaan cabdixafiidow waxaad ka soo horjeedaa dadkan ajnabiga iyo maxaa lahaa isguursigooda qaybta dambe barnaamijka uga dhici doonaa marka su-aasheeda koowaad waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed markay nimanka wadaadadayo ajnabiga guursanayaan wadaadada in inverted commas ay guursanayaan because we don't know cidda wadaad iyo ciddaan wadaad ahayn ilaahay baa wax walba og walaa nuzaki cala allahi axad markay guursanayaan maxaa meherkooda loo jebiyaa oo $20 iyo $10 iyo $5 roogaga dhiga iyo waxa la midkaa dadka qaar waxay yidhaahdaan diinta ayaa ogol guurka meherkiisu uu yar yahay ee diintaadan wax ka oqon cabdixafiidow garbaaleedihiin axaadiis baa kusoo aroortay waana aaminsanahay axaadiistaas wiilka soomaaliga maxaa ugu samayn weydeen that is the critical question aan jeclahay inaad ka jawaabtaan rag iyo dumarba qaybta labaad ee barnaamijkan magaaladan London 2018 waa xilli aan aad u fogeyn ayaa waxa dhacday in aabba Soomaaliyeed gabadhiisa uu soo doonay wiil u dhashay dalka la yiraahdo Jamaica oo muslim ah ninkaas inta aanu ka aqaano waa nin salaad badan aamusan inta badan wanaag waxaan ahayn kuma arkin qofka xaqiisa waa la siiyaa bismillah wanaag ayaan ku ogaa ku aqaana wax kale oo xumaan weliga kuma arkinin balwad kuma arkinin dhibaato kuma arkinin nin aamusan ilaahayna caabuda perfect gentleman buu ahaa waxa uu soo doonay gabar Soomaaliya waxa uuna go'aan ka gaaray inta meherka ka soo qayb qaadanaysa gabadhan ogow aabba Soomaaliyeed baa soo kursaday u soo rafaaday habeen iyo maalin u soo shaqeynayay ama maxaa la yiraahdaa u ordayay habeen iyo maalin oo ayadoo gashaantii oo geedka la eego qurux badan soo saaray waxa uu leeyahay xaq buu leeyahay waxa uu leeyahay ixtiraam in la tuso waa waalid waxa lagu yiri 8 qof oo kaliya ayaa ka soo qayb galaysa under 10 people ayaa ka soo qayb galaysa meherka maxaa yeelay wiilka ayaa sidaas raba gabadhuna waa ku waafaqsan tahay aabihii wuxuu jiiday meherka inuu ka qayb qaato aabahaas haatan London buu joogaa mararka qaarkood waa isaragnaa he will be more than happy to testify this waxa uu yiri anuu meherkeeda ka qayb qaadan maayo midda koowaad ajnabiga baraalli kama ihi midda labaadna waxaaba ka daran waxaan rabaa buu yiri inaan keeno odayaashii saaxiibaday ahaa saaxiibadiisu inuu keeno rabaa ehelkiisii qaraabadii inuu keeno rabaa is a family day waa celebration day haddii aad ka soo tagtid in abtiga iyo maxaa lahaa adeerka iyo awowga oo meeshii dadka loo ogol yahay hadda waa waagan corona ma jirin ogow sheekada la soco Soomaaliya aad ka soo tagtid daadar meherkii baa naga qarsatay gabadha oo gabadhii in la guursaday maxaa noogu soo sheegi weyday waxaasoo kale ka daran one of the reasons meherka in la shaaciyo dad badan ay ka soo qayb galaan oo ay maqlaan loogu baahan yahay baraka keliya ma ahan but also gabadhan inaan rag kale aysan damaacinin wey marka gabadhan guurkeeda 4 baa og haddii wiil geel jira uu ku dhaho warkaysii dee waa laga qariyay saaxiib baa laga qariyay taasina waa yaroo kaftana calaa kulli xaal aabihii wuxuu jiiday inuu meherkeeda ka qayb qaato meeqa u malaynaysaa meherkeedii meeqa u malaynaysaa $100 sorry 100 gini oo u dhiganta $70 wey maybe $60 $70 I don't know meelaha u dhiganta ayaa lagu meheriyey
odaygaas ma la sharfo ma la karaameeyey mise lama sharfinoo lama karaamaynin kama hadlayo in gabdhaha markii dhaqanka soomaalida ninkan waa nin aan dhaqankeena aqoonin kama hadlayo ninkan inuu yarad keeno geel keeno farda keena kama hadlayo boqolka baawna kama hadlayo laakiin in loo diido inuu keeno ehelkiisii iyo qaraabadiisii markii ay yiraahdeen annaga ayaa lacagta wax ku darayno oo jecel dhaqanka soomaalida sideeda inaan u celebrate garayno waxa lagu yiri diintu waxay ogashahay oo kaliya dad yar inay yimaadaan oo maxaa diintu waxay ogashahay wax yar oo barakada leh xagee bay kaga taalaa diinta in la yiraahdo arooskan 100 qof kama soo qayb gali karto ama 200 kama soo qayb gali karto hadda ayagu awoodaan reerkii waa garab taagan war oday Soomaaliyeed baan ay hal ixtiraamo gabadhayda anaa dhaqaalaheeda qaar bixinayee si wacan ha loo ciido waa loo diiday gabadhina ninkii baa raacday soo ma garanin calaa kulli xaal arrimahaas ayaa soo noqnoqda oo jira ninka odayga ah haddaad booskiisa ku jiri lahayd ama aabbaha u ahaan lahayd gabadha Soomaaliyeeday inaad erebal hoosna uu soo qordareenkaagu waxa uu yahay ogaada ninkaas madowga oo muslimka nin xun ma ahan nin akhlaaq xun ma ahan shakhsi wanaagsan baan ku aqaanaa we have to give him a credit waaye gabadha maan garanay si fiican laakiin ninkaas shakhsigan garanaya ayuu ahaa odaygan Soomaaliyeed furka ayuu tuuray sheekadoodii maxay ku dhamaatay inay isweydiisaan baa laga yaabaa gabadhii iyo ninkii waa ismehersadeen sheekhi ayaa meheriyey wabillahi tawfiiq aabaheedu magaalada joogay inuusan meherkeedii ka qayb qaadan ayaa dhacday laakiin mar dambe oo ay baby dhashay ayuu odaygii maaragtay siiri arrintii kolle xeeriye fardhaal kala dhace ilmaha yaroo awowga u tahay soo arag and he give them maxaa lahaadee he give uuna u duceeyey dabcan su-aasha kale oo aan jeclahay inaan duucan ku weydiiyo hadda laba ina weydiiyey gabdhaha maxaa nimanka ajnabiga markay guursanayaan loo dhimaa meherkooda iyo arooskooda iyo damdamtooda loo yareeyaa wiilasha Soomaaliyeedna loogu dalcaa cirka yaa loo faanayaa yaa loo sheegayaa waa garan la'anahay midda labaad haddii odaygan Soomaaliga ee gabadhiisii la yiri meherkeedii ehel iyo qaraabo dhan kama soo qayb gali karaan 8 qof iyo 10 qof kaliya u baahanahay naga raali ahaada haddaad ahaan lahayd maxaa kula gudboonaan lahaa su-aasha saddexaad Cabdixafiin Maxamuud Jaamac haddii gabadhaada uu ninkaasoo doono ajnabi ah maxaa samayn lahayd arrintaas arrin sahlan maaha cunsurina ma ihi xoogaa yarana diinta waa ka aqaana haddii nin muslim ah oo akhlaaq iyo diin leh uu geed hoosti gabadhaada usoo fariisto min sunnatihi calayhi salaatu wasalaam waxa weeye inaad siisid gabadhaa oo dad raali noqotid so dhinacaa diinta kama eegaya marka anigu waxba waxaan ka eegayaa haddii ninka ajnabiga geed uu soo fariisto in diintu ay siisa ay ogoshahay maxaa diidaya wiil Soomaaliyeed oo diintiisoo kale la ama ka badiya ama la mid ah inaan siiyo maxaa diidaya oo aan markaas maxay raalli ogaga noqdo marka anigu labada hadday ii sinaadaan waxa ii cad oo aan shaki igaga jiranin ninka aan gabadhayda siin lahaa inuu yahay ninka Soomaaliga geeljiraha oo nimanka Soomaalida romantic man take that rubbish romantic waxa sheegaysaan xashiishka ku dara nolosha runta baan ka hadlaynaa kama hadlayno noloshan fayga maxaa la lahaa dhalaalka ku dhisan real life baan ka hadlayaa berita hadday isku dhacaan uu ku imaanayaa aabihiis baa taqaanaa awowgiis baa taqaanaa qaraabadiisaa taqaanaa jilibkiisa u hooseeyaa taqaanaa cid aad kala xaajootid baad haysataa wiilka cadoo indhaha buluuga ayaan kala hadlaa hooyadii muslim maaha aabihii waa horuu dhintay ama muslim maaha xagee kala xaajooda hadhowto waxaa dhacaysa carruurtaas ayadood marka loo geeyo dhashay ninkan waxaa dhacaysa ninkan gabadha guursaday dhashay waxaa dhacaysa dadkaas dhaqan kale iyo diin kale haystaan saamayn bay ku yeelan karaan carruurtooda waalid bayna u yihiin uma diidi kartid so marka waxyaalo badan baa ana maskaxdeeda ku jira laakiin wiil Soomaaliyeed cidna kuma doorsan lahayn gabadhu hadday tiraahdo waa jeclahay waxaan dhiraa maandhay waa ku ducaynayaa wiilkan cadma afaqaan ama wiilkan madow ama ninkan carabkaaye nin Soomaaliya oo geeljira oo goba iyo kana kugu daro ciduu doono Soomaaliya ka ahaado anigu sidaas ayaan aaminsanahay oday Soomaaliyeed baan ahay laakiin waxaan also qadarinayaa noloshaan iminka aan ku noolnahay iyo dadkan yaryarkaasi u fakarayaan inay ka duwan tahay sida dad fara badan oo naga mid u fakaraan misaal baan ku siinayaa ayeeyo Soomaaliyeed baa gabaray ayeeyo u tahay waxay ku tiri ayeeyo waad qurux badantoo waxaad tahay qalanjooyinkii geela laga bixin jiray ayeeyadan geelu wuu la weyn yahay oo waxa weeye waa
waa taqaanaa geelu meesha soomaalida ka joogo gabadhaanuna geelu iyo digaagu waa isugu mid bal digaagayba cunitaankiisa taqaanaayo ingiriiska lagu gadaa geelu macnaba uguma fadhiyo gabadhii waa qaracantay waxay tiri ma geel baad iga dhigtay igu miisaalisay marka generationkaas ayaa jira saa u kala duwan ilmahan yararkaa qurbaha kuraya xaqiiqatan muuqaalka iyo hadalka iyo markaad gacantooda taabatid aad aabba tiraahdid waad dareemaysaa waad ogtahay inay ilmahaaga yihiin laakiin maskaxdoodu way naga duwan tahay sidee arrimahaas loola jaan qaadaa marka anigu oday diyaar oo ma ihi gabaraan dhalay oo aan ogahay habeen iyo maalin aan daba ordaayay ilaahay baa wax xifdiya maadi hooyadeeda ka gaadhay sidoo kale inaan oday ajnabi siiyo aad iyo aad bay igu adagtay arrintaas adigu see u aragtaa وهاجاك وحن ربا إنا نوحير هوست كحريقه ضد كسومالي waa aqaana hadalka ayagoon hubsan bay la cararaan anigu kama soo horjeedo qof halkaa maraya oo doonaya inuu qof ajnabi guursado mararka qaarkood waxa dhacda kuwa Soomaali ka soo tagay oo ajnabi guursada guurkooda u barakooba oo ajnabiga ku daga ama rag ha ahaadaan ama gabdhaha ahaadaan inta badan gabdhaha ugu badan anigu marka kama hadlayo gabar aan dhalin oo halkaa maraysa ninkay raacayso shuqul kuma lihi mana dhalinin waxaan ka hadlayay my personal dareenkayga oo ah maxay kula gudboonaan lahaa hadday dhiclayd waxaan idin sheegay war cad baa oday weyn loogu yimaadaa arrintaa maanu jeclaysan lahayn allana waa ka nogan gelaya adigu soo aragtaa waa mahadsantihiin kabanka hoose noogu soo qoro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu